tacsiyadaynayaa dhammaan ganacsatada Somaliland gaar ahaan ganacsatada reer Wajaale anoo ka tacsiyadaynaya dabkii iyo khasaarihii gaadhay dabkii 2 cisho ka hor qabsaday magaalada in alla intii ku xoolo beeshay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u cawad degdega ugu cawil celiyo mar haddaynu caafimaad qabno cidna inaga dhimanna xoolaha awalba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha Allah intaa kadib ganacsatada reer Wajaale odayaasha uqaasha shuyuukhda dhammaan waxaan ka codsanaynaa amaamiirta dawladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay dhowr joor bay dhacday maalin walbana khasaare ina gaarsiisaa khasaarana uma taagnaan karo waa inaynu bini aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe oo inagu yimaada loo yareyn lahaa wasaaradda hawla guud ahaan halkan waanu joognay ilaa shalay markii dabka la damiyay cagafcagafyadayadii injineeradayadii iyo dhammaan aqoon-yahankii wasaaraddu anigu shalayna waan joogay maantana waan soo noqday waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan ummadda Somaliland ba uga sheego in wasaaradda hawlaha guud ay bilowday Wajaalena ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqon maanta waxaanu joognaa waa suuqi Wajaale iyadaanu dhameystiri doonaa ilaa aanu dhameynana ka tagi mayno waxaanu ku xijin doonaa insha Allah ganacsatada suuqa gobonnimo waxaanu ku xijin doonaa suuqa Burco sida ayaanu dalkoo dhan u wadi doonaa ay isugu xigi doonaan booraba ku sii xigi doonta 3 bilood oo soo socda waxaanu doonaynaa insha Allah ilaahayna ka baryaynaa inuu nala garab galo suuqyada dalka inaanu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo damdam isku geli karo leedkoodu wanaagsan yahay wax walbaba aanu muxuu ahaa insha Allah ka dhignaa dadweynaha reer Wajaale ee maanta magaaladoodii aanu joogno suuqii joogno iyaga waxaanu faraynaa imika shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta fadhasaabka gobolka iyo guddidii ganacsatada iyo odayaashiiba waxaanu isla qaadanay muddo 3 casho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadhka u dhaxeeya labada sakadood ee magaalada waxaana jeclahay saxaafaddu hadhow inay duubto hadhka hortayda ah sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay sii gudbinta dabka sakadaas haday gubato wuxuu u talaalayaa sakada kale maadaama waxa isu hayaa ay loox iyo leedkii iyo jiingadiiba yihiin arrintaas amar weeye 3 casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta cagaftaas laga fujin doonaa waliba ganaax baanu saari doonaa arrintaa waxaan jecel lahay dadweynahana ka codsanaynaa ganacsatada ka codsanaynaa meheradleeda ka codsanaynaa inay fuliyaan waanu la isla qaadanay guddida odayaasha maamulka degmada gobolka iyo wasiirada kaleba